بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan maanta interview la yeelanaynaa Professor Ahmed Umar oo ah mas'uuliyiinta ugu sareysa ee ururka USB. waxaan doonaynaa halkan inaan ka su'aalno laba su'aal hadii loo baahdana aan ku darsano. midda koowaad waxa ay tahay Professor, sidaad la socoto dhawaan waxa yimaada magaalada Canada Professor Ahmed Ismail Samatar oo safar dheer uu kaga yimaaday magaalada Hargeysa ilaa iyo Oodal. safarka dheer wuxuu ku soo gabagabeeyay asagoo Yurub soo maray magaalada Toronto ee dalka Canada. marka see kula tahay fikradihii uu waday iyo wixii bulshada jaaliyada uu ka dhaadhicinayay, bal wixii adiga aad fikir ka qabtid. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا السلام يا دمانتين بهذا USB. waxaan salaamayaa kala balumada Soomaaliyeed dhamaanteed meel kasta ay joogaan. salaanta islaamka ku salaamaya. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. haddaan su'aasha soo noqdo oo bal isku dayo sida ay garashadayda iyo aragtidaydu tahay. waxaan Ahmed wuxuu yimid halkan bishii inaga dhamaatay August 15 wuxuu la kulmay jaaliyado kala duwan. jaaliyada bahda uu ka dhashay wuxuu la kulmay 17 jaaliyada Somaliland sheegatana wuxuu la kulmay 18 Ahmed wuxuu halkan kolkuu sharxayay safarkiisii uu ku tagay gobolada waqooyi uu ku tagay buu ka sheekeeyay. laakiin hadafkiisa siyaasadeed marka uu ka sheekeynayay waxaad moodaa inuu ahaa nin dhinac ka raran oo u ololeynaya waxa Somaliland la yiraahdo hadda lagu sheego. waayo Somalilandtii hore ee naqaanay ee Ingiriis joogay, Ingiriis waa tago waa guuray, laakiin ta wado Ahmed uu ololeynayo waxa samaystay niman SNM loo oran jiray, hadii la dheereeyana loo oran jiray Somali National Movement. taariikhdii waqooyi oo dhan waa bedeleen, waxay ku bedesheen taariikh national 18 bisha May bay ka dhigteen. horta Ahmed hadafkaas uu ololeynayay wuxuuna u socdaa tu isaga u gaara oo shakhsiyadiisa isaga damaciisa iyo dantiisa wuxuuna u hanweyn yahay inuu noqdo kulli madaxweyne Somaliland inuu halka ka noqdo. sidaas baan u fahmay. habasa ahaatee taas waa wax isaga shakhsiyad ku ah oo shakhsiyadiisa gaarka u ah. marka qofkuna de wixii isagu fikirkiisa waa yeeli karaa, laakiin ninuu diyaarsan ma ahayn bal inuu ogaado dhibaatooyinka ka jira waqooyiga, gobolada waqooyi iyo rabitaanka shacbiga Soomaaliyeed ee gobolada waqooyi ku kala nool. ma miisaamin iyaga mana tixgelinin dhibta haysatana uma u fiirsanin. laakiin waxaad moodaa inuu arkayo kaliya nimanka iyagu Somaliland cusub samaystay kaligu wajiga ay leeyihiin kaliya inuu daawanayay iyagana wax ku qabto. marka taas waa shakhsi wax isaga u yaalo u gaara, waana shakhsiyadiisa weey. laakiin ummadda gobolada waqooyi ku nool way daawanayeen, wayna akhriyeen. wax kasta uu akhriyana way daawanayaan. masiirka ummadana iyaga iskale oo iyaga bay wax ka go'aan. rabitaanka ummadaasina Soomaali bay rabtaa. gobol walbana wuxuu rabaa dantiisa u gaarka ah inuu isagu gacanta ku dhigto uu ka tashado. marka sida Khaatumo, Maakhir iyo Awdal. Ahmed Sanin arrimahaas uu muuqdaan de ilama yeekeen aniga marka sidaan u arkina sidaasaan u arkay. Professor, waxaan kaloo wax ka weydiinaynaa dhawaan waxa dhacaya shirkii New Deal ee ka dhacaya Brussels caasimadda Belgium. ka USB ahaan goboladii ay deegaan ahaan ugu soo jeedeen deegaamada USB sida Khaatumo, Oodal iyo Maakhir weli xubno ka socda dawladda dhexe ee federaalka ma aysan gaarin. inkastoo goboladii koonfureed dhammaan ay gaareen wafdiyo ka socda dawladda federaalka ah kuwaasoo
soo qiimeynaya dalabaadka lagu horumarinayo gobolada iyo wixii tafaasiil u baahan yihiin haddii ahaan lahayd wixii arrimaha bulshada iskoolaad caafimaad iyo horumarkii gobolka guud ahaan maxaad kula talin lahayd dowladda dhexe ee federaalka ah madaxdooda mas-uuliyiinta ugu sareysa kuna boorin lahayd jaaliyadaha USB ee degan khaasatan Yurub haddii aan bal u doono su-aashaas waxaan ka dhigi karnaa laba su-aalood baan u kala qaybi karnaa ama laba qaybood qayb waxay khuseyn kartaa dowladda federaalka ee Soomaaliyeed qaybna waxay khuseyn kartaa international community-ga macaawinooyinka bixiya amba deeqda ugu deeqa adduunka amba Soomaaliyaba siinay marka dowladda federaalka ee Soomaaliyeed iyadoo waxaan oran lahayn inuu ku oran lahaa ayna tahay inay fahamto ogaatana waxa ay mas'uuliyadda u hayso horta inay ummadda Soomaaliyeed guud ahaan bata ummadda Soomaaliyeed rabitaankeegana inay dhowrto ilaaliso xuquuqda ummadana inay ilaaliso dalkii Soomaaliyeed 18 gobol buu ahaa wixii is ogol 18 gobol baan ku noqday waxa mas'uulka dowladda federaalka ee Soomaaliyeed cid la dul saari karo cidna ma jirto marka inay rabitaanka gobol walba amba labadii gobol ee iyagu isrababa inay dhowrto oo wuxuuga dhowrto rabitaankooga tixgeliso wadanninimadooda iyo Soomaalinimadooda iyo dadnimadooda iyo qarannimada Soomaaliyeed bayna ilaaliso waajib ka saaran weyn marka waxaan oran lahaa hadaan soo noqdo tawaqooyiga marka ay ku wajahan waqooyi waxaad ogtahay dowladda Soomaaliyeed ee federaalkii inay dhibaato ka taagan tahay la iskuna dulmo la iskuna cagajugleeyo qolo new Somaliland la yiraahdo oo le dhulkaba anaale inay ummadda u cagajugleyso oo danahooga laasho oo hadba laga qaato nin indhala deganala caqlina la oo Ilaahay baa sheego yiri sumun bukmun umyun fahum la yubsirun Ilaahay baa yiri marka Ilaahna been ma sheego qofku haduu garan waayo wuxuu xaq u leeyahay runta haduu garan waayo waa nin degala oo caqli lahayn oo indhala lahayn oo waxba garanin marka dowladda Soomaaliyeed in ay dhaga yeelato oo caqli yeelato oo aragti yeelato oo ummadda aragto oo ummadda waqooyi ee qoladaas haysato in lagu dul ansixiyo ma waa dambi baan qabnaa marka in lagu dul ansixiyo waliba lagu siiyo lacag annaga ciidamo iyo hubna loogu isticmaalo nalagu dilo oo nalagu gubo marka dambiga ummadda Soomaaliyeed dowladda Soomaaliyeed baa wixii ka dhaca waqooyi ee ummadda ku dhaca waana yahay ummadda dowladda Soomaaliyeed waajib ka saaran ha fuliso gobol walba ciideeda ba mas'uuliyadeeda iskale dadkeega waxa ay xaq u leeyihiin hasiiso amba social ha noqoto amba wax ka duwan baa noqotay dowladda Soomaaliyeed waxaan oran lahaa marka indhaw yeesha arrinkaas kana fiirsada annaguna yeelimayna marley inaad beel Soomaalida kamida waqooyi degta had idinku tixgelisaan oo ku ixtiraamtaan oo masiirka ummadda waqooyi ee ka badan iyaga ee Soomaalinimada rabta had iyaga u xidhxidhaan oo u garbaduubtaan kullu ogolaan mayno marka yeelana mayno adduunyadana waan u sheegaynaa marley oo waanan u sheegnaa waana la socotaa ta internationalka ayaan u noqonaynaa marka internationalka waxaan leenahay haddaynu nahay American iyo haddaanu nahay European ummadayadii halkaa nagaga noolayd waad ka warqabtaan oo hay-adaha jooga lacagtiinana in ummad lagu laayaay waa dembi annagu tagaskaan bixino in ummadayada lagu laayo lagu xasuuqaana waa dembi labaad wey marka iyagana waxaan u jeedinaynaa inay ka fiirsadaan deeqda ay bixinayaan ee gobolada dalka Soomaaliyeed la geynayo amba dowladda federaalka loo dhiibayo in dowladda Soomaaliyeed ee federaalka lagu qasbo in sida xaqiiqada ah ee dadka rabitaanka shacbiga Soomaaliyeed rabaan inay ugu qaybiyaan oo lagu diibo waxaan ugu boorinaynaa inay tagaan gobolada waqooyiga waxa ka jirana iyagu xaqiiqo run ahaan u soo arkaan baan oranayna international community-gana sidaas aan ka codsanayna iyadoo qoraalana kulay waanu gudbin doonaa waliba ka daalimayn maxaad kula talinaysaa adigoo ka faa'iideysanaya fursadan caawa halkan aan ka duubayno jaaliyadda USB guud ahaan ay ku nool qaaradaha adduunka
horta waxaan kula talin lahaa oon odhan lahaa iyaga qudhoodu dee way arkayaan, laakiin waxaan odhan lahaa qolo walbayba dowladda aada la joogto eed ka mid ka tahay in aad u qorto dowlada wasaaradahooga arrimaha dibadda amba xukuumadahooga ood u gudbisaan dhacdada runtaa ee ka jirta waqooyi, ka jirta gobollada waqooyi, dhibaatada lagu hayo tacadiga caruurta waqooyi iyo dumarka waqooyi ku nool iyo dadka waaweynba lagu hayo dhibta lagu hayo. waxay arkaysaan ood u jeedaan caruurteenna waxbarata ee jaamacadaha ka soo baxda inaanan waxba loo haynin, ay badda ku daataan, qaarna guryahooga ku dhex waashaan. waxay oo dhan waxaa sababa systemka meesha ka jira ee somaliland la yidhaahdo ee dowladda federaalk ee soomaaliyana ku daawanayso wey baa sababa. marka waxaa inaad ka gelgilataan ood dowladaha aad ka midka tihiin u dirtaan ood tustaan waaqiciga meesha ka jira. maalinta shirkaasi brixelis ka dhacayana waxaan jeclaan lahaa amba idinku talin lahaa in aad mudaharaad ka muujisaan ood gurigaa hortiisa tegtaan, waxaad qoraal qaybin kartaanna qaybisaan, gebigiinuba dee reer yurub oo dhanna halkaa iskugu tegtaan ood isururisaan ood isabaabushaan, kana hortegtaan dulmiga iyo dembiga laydinka galayo iyo dhibaatada kusoo socota, reer yurubtana ka qancisaan amba international communityga inuu lacagtaahay bixinayaan lagu dilayo caruurtiinii iyo eheladiinii aad kaga timaadeen dhulkii hooyo aad kaga timaadeen, aynaan xuquuqal insaankana ay ka tahay wax ka horjeeda inaad ka gelgilataan ood sidaad tiraahdaan baan idinkula talin lahaa. halkaas waxaan kusoo gabagabeynaynaa wareysigii ala yeelnay professor axmed cumar oo ah mas-uuliyiinta sare ee ururka USB. aad baad u mahadsan tahay professor axmed cumar. taa waxaan raacin lahay oo kale arrin ka soo yeedhay professor axmed samatar oo odhanaya reportka uu siiyey African report uu ugu baaqayo international communitygu inay ixtiraafaan waxa la yidhaahdo Somaliland lagu magacaabo. halkaa waxaan odhan lahaa axmed wuxuu ka buudan yahay uu ka qaldamay dastuurka iyo sharciyaasha internationalka, wuxuuna iloobay in Somali Republic dhalatay oo ummadda Soomaaliyeed israacday iyagoo israba cidna isku qasbin. wuxuuna iloobay calankaa buluuga ee la tuurayo meeshii ugu horeysay ee looga dabaaldegay inay Hargeysa. calankaas wuxuu markhaati ka yahay 26 June inay Republic of Somalia ayna laba ahayn ay mid kaliya ahayd, laakiin Talyaani iyo Ingiriis waxay ku heshiiyeen dee labaduba way guureen markaa way socdeen. calanka Soomaalina calankaasay ku heshiisay. shirarkii Soomaali ku heshiisayna wuxuu ka bilaabmayay 54kii in Soomaalinimada la dhowro, qarannimada Soomaaliyeed la ilaaliyo, in Soomaali meel iskugu timaado. Soomaaliya ku heshiisay marka wixii Soomaali ku heshiisay lama furfuri karo, marka waa inuu xaqiiqada ogaado horta. ta kale dee fikirkiisa uu hadli karaa, laakiin mas-uuliyadda ummadda reer waqooyiga ee rabta Soomaalinimada iyo wanaagga Soomaaliyeed iyo quruxda Soomaaliyeed iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed isaga may u digmanin in uu raadiyo waxaan jirin oo cidi leedahay oo urur ka horeeyaan soo sheego SNM la yiraahdo samaystay oo taariikhdiiba la dabagediyay oo dhinac kale loo dhigay inuu ka noqdo inuu afhayeen u noqdo ololeeyo waa mid laga xishoodo weeyaan. marka aqoonta iyo caqliga iyo damiirnimada iyo dadnimadaba waa wax u dhimay. marka waxaan leenahay axmed fikirkiisa iskaga socdo, laakiin ummadda reer waqooyiga waxaan leenahay ka waantooba, iskana ilaaliya wixii fikrad qaldan idin wada horumarkiina iyo walaalnimadiina iyo wadajirkiina iyo Soomaalinimadiina khalkhalinay hadduu idinka dhashay iyo hadduu meel kale ka yimid inaad iska ilaalisaan, meelna uga soo wada jeedaan ood quruxdiina ilaashataan baan idinkula dardaarmi lahaa. axmedna waxaan leeyahay ka fiirso kolley waxyaabaha ixtiraaf iyo waayo shuruud baa kaa horeysa, axdi baa kaa horeeya, qoraalaa kaa horeeya. dowlad Soomaaliyeed ayaa meeshan maamusha iyadaana lahayd
dowladda Soomaaliyeed bay u taallaa waxa iyadoo ay yeelayso iyo sida Soomaalinimada ay u furdaaminayso dowladda baana mas'uul ka ah wax annaguna haddaan Soomaali nahay oo gobolada u dhalanay waxaan u daba fadhiisanaynaa oo caqliga iyaga aqoontayadaba gelinaynaa inayna Soomaali kala guyin kalena tagi karin meelna kala mari karin koox yarina maruursan karin intaas baan kusoo gabagabayn lahaa marka Soomaali weyntaada iska raacbaan oran lahaa marka Axmed oo walaalnimada Soomaaliyeed ka timi wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan intaa raacin lahaa oo kale shirka ka dhacaya Taleex ee Khaatumo ummadana waxaan u rajaynayaa in ku boorin lahaa inay wanaagooga iyo taladooda iyo dantooda ilaaliyaan oo danta Khaatumo ummad shacbigaas wuxuu ku jiraa maamul iyagu ay leeyihiin oo hanta oo waxa ay rabaan fulin kara inay sameeyaan kuna taageeraan hormuudkooga iyo caqligooga iyo aqoontooda waxaan walaalaan tihiin dad wada dhashaatihiin marka horgalka u hor socda dhul ayaan dantiinu oolin idinka dhashay inaad ka waantoodaan oo ka aqliyaysataan iskana diidaan iskana celisaan baan kullay ku dardaari lahaa